magaalada Beirut ayaynu ku daabanay waxa goor dhaweed ka dhacay qarax weyn qaraxaasi oo ilaa hadda tafaasiil yar ay ka soo baxayso isla markaasina uu ahaa muuqaalo runtii argagax ku sameeyay dadka ku nool magaalada Beirut dhinacyada kala duwan haddaba maanta dalkaasi waxa iyada loo dhex taagayay go'aanka xukuumadda oo maxkamadda qaramada midoobay ay ka soo saaraysay 4 qof oo lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen dilka ra'iisul wasaare hore Rafiq al-Hariri ee Lebanon imika waxaynu arkaynaa muuqaaladii ugu dambeeyay halkaasi ka holcaya waxa khadka toos ugu jirta magaalada Beirut oo degan halkaas oo ardayadka ubax Cabdi Cali oo barata culumta siyaasadda ubax ku soo dhawo BBC-da ubax maxaa ugu dambeeyay imika adiga jooga magaaladii Beirut caawa maxaa ugu dambeeyay qaraxan kadib aad walaalo ma santahay horta qaraxay mid laga argagaxoha cidna wali waxba ka garanayso anigu jaamacadda American University of Beirut baan dhigtaa anigu markaa jaamacaddan dib joogay markaa nolomo badan dibadda u baxno adigu waddankii dhan uu burburay intan area-dan u dhow qarax oo dhan way wada burburtay markaa cidna tafaasiil nagama siinin laakiin waxaan ognahay inay dad badan ku dhaawacmeen dadna ku dhinteen markaas wali waxyaabaha naga soo gaaraya aad bay u yar yihiin fake news badanna wuu jiraa markaas wali waxaan lagu yidhi dayasuga inta la shaacinayo qaraxa waxa ka dambeeyay waxa sababay waan gartay ubax wad maadsantahay laakiin halka qaraxan ubaxay ka dhacay markaad adiga magaaladii Beirut jooga waxa xaafad sideeya meel dekada u dhooba uu ka dhacay oo aan dad badan ku dhaweyn guriyo ku dhawi yani guriyo ku dhaweyn waa sidee agagaarku ka dhacay dad noo yara fasirto waxa weeyaan walaal qarax waxa ka dhacay waxa dekada u dhow markaas dad way degan yihiin hadiyo jeer dadku dalxiis iyo boat iyo waxaasay ka haysanay badda ku maraan markaas dad badan way u dhawaayeen guriyo way ka dhisan yihiin laakiin qarax xoog u weyn buu ahaa oo sababay annaga xitaa inaanu guryahaanu deganayn soo dumaan oo jaamacaddeedana dhulkoodana gariiro waayo anigu qolkaygaan joogay markuu qaraxu dhacay markii hore waxaan moodayay dhul gariir markuu qolkii dhan wada socday dhulkii baan tiibsaday haddana wixii dhan baa daaqadihii darbiyadii wixii dhan baa wada dumay marka qaraxa intaa waxaa qarax dadka ka adjustiyey waan gartay waxaan kusoo gabagabeynaya waxay Lebanon wadogta bariyahan xaaladeedu iska kacsanayd maanta waxa la filayaa maxkamadda Rafiq al-Hariri in laga soo saaro xukun oo ah ra'iisul wasaare hore dalkaasi la dilay 4 qof baa loo haystay oo xagga janjeedaba la leeyahay Xisbullah qaramada midoobay baa soo saarisay maxaad xaaladda siyaasadeed ee Lebanon ku saabsan kiiska Rafiq Hariri naga kordhinaysa mar hadda tahay ardayad siyaasadda iyadoo halkaas ka barato walaalo sida ogtihiin baa xaaladda Lebanon way kacsaneed 2 bilood ee ugu dambeysay qaramadooda midoobay waxa la sugayay inay khamiistan publicly u shaaciyaan dadkii ka dambeeyay oo loo malaynayo inay u janjeeraan ama ay yihiin Xisbullah markaas dad badan baa leh qaraxani waa waxa weeyaan dad baa isticmaalaya sidaan loo shaacin arrinta ay qaramada midoobay soo saartay ama dad guddigii investigate gareynayay daliinkii ka dambeeyay prime ministerkii waddankan 2005 markaas dad badan baa leh waxay dad baa doonayay inay dadka shaka geliyaan ama ay arrinka jeediyaan oo dhinac kale u jeediyaan aad baad u mahadsan tahay ubax Cabdi Cali oo iga soo biirtay caasimadda Lebanon ee Beirut aad baad u mahadsantahay ubax